Amina Honey waa gabadh Dhulbahante ah oo sheegata inay ka tirsan tahay qabiilka OGADEN, ujeedadeeduna tahay inay ku baado dadka. Waxay isku dayday inay khiyaanto kadib markii aan u diray 2 lacagood oo kala duwan bishii Maajo iyo Juun 2021. Xitaa waxay isku dayday inay lacag badan iga qaadato kadib markii aan diiday dalabaadkeedii. Sida ka muuqata taariikhdeeda wicitaanka, waxaad arki kartaa wicitaano aad u badan oo ay samaysay si ay lacago badan iiga hesho. Amina waxay shakhsi ahaan u dirtay xogtayda ku saabsan askariga dilaaga ah ee Pangani oo lagu magacaabo Ahmed Rashid oo aan dhowr jeer ka dacwooday markii aan joogay Kenya. Markii aan diiday inaan u hoggaansamo dalabaadyada, waxay hadda macinsatay inay samayso hadalla been abuur ah iyo kutirikutaan. Laga soo bilaabo isdhexgalkeenii ugu horreeyay, waxay ila muuqatay inay iga raadinayso kaalmo, laakiin waxaa soo baxday inay waxa kaliya ay doonayso ay ahayd inay khiyaanto. Haweenaydan ayaa dhowr jeer isoo wacday iyadoo ku ooynaysa inaysan lacag haysan oo laga saaray gurigeedii. Ma fahmin sababta ay lacag iiga tuugsanayso. Waxaad sida muuqata arki kartaa lacagaha 2 mar ee kala duwan aan u diray. Xaqiiqdii waa qof shar badan oo leh ujeedooyin qarsoon. Waxaa lagu soo warramay inay sheekooyin been abuur ah iigu faafisay barta TikTok kadib markay iga qaaday 2 lacagood oo kala duwan. Amina Honey waxaa sidan ku kallifa damac, sababtoo ah waxay isku dayday inay lacag badan iga qaadato iyadoo ii soo jeedisay eedeymo been abuur ah kuwaasoo ah inaan ku xadgudbay beesha OGADEN. Waxaan si cad u sheegay in Ahmed Rashid ay ilaaliyaan qabiilka OGADEN oo ku xiran danahooda gaarka ah, sababtuna tahay ganacsiga Eastleigh, tahriibinta badeecadaha Bermuudada iyo ilaalinta dhiig miiratada Soomaalida. Waxaa kale oo aan sheegay in Ahmed Rashid uu beegsaday Soomaalida aan OGADEN-ka ahayn si uu uga qaado baad. Ninkan ayaa nolosha Soomaalida aan OGADEN-ka ahayn ee Eastleigh iyo Pangani ka dhigay gebi ahaanba murugo. Amina lafteeda waa gabar Soomaaliyeed oo la yaqaan oo ku nool agagaarka Eastleigh, waxayna dilaal u tahay saldhigga booliiska Pangani, gaar ahaan dilaaga Ahmed Rashid. Waxay ku shaqaysaa amarka askariga dilaaga ah si ay u qariso musuqmaasuqooda. Ahmed Rashid wuxuu ilaaliyaa oo difaacaa meheradaha sharci darrada ee Pangani. Dhowr jeer ayaa hore loo soo gudbiyey dacwad isaga ka dhan ah, laakiin waxba lagama qaban ilaa hadda. Markii aan diray xogta isaga ka dhanka ah, Amina Honey ayaa ii timid si ay iiga qaado lacago baada. Iyadu waa haweeney dhexdhexaad ah laakiin iska dhigta qof yar, ayadoo adeegsata waxyaabaha la isku qurxiyo. Iyadu sidoo kale waxay ku lug leedahay ka ganacsiga jirka gabdhaha yaryar iyadoo ku hadlaysa daroogo. Sidoo kale ayada ayaa isticmaasha daroogada. Waa hooyo leh 5 carruur ah, dhammaan carruurteeda oo aabbayaal kala duwan leh. Waxa kaliya oo ay samayso waa inay u dhaqantaa sidii dilaal u dhexeeya Ahmed Rashid iyo dadweynaha. Isku soo wada duubo, waxay ku lug leeyihiin ka qaadida baada dadweynaha, khaasatan dadka aan u dhalan OGADEN ee degan Eastleigh. Ugu dambayntii, waxaan jeclaan lahaa inaan tilmaamo sababta dhammaan carruurteeda ay iskoolka uga baxeen. Sidoo kale waxay isku daydaa inay lacago baadah ka qaado bulshada iyadoo adeegsanaysa hab aan daacad ahayn. Way caddahay in haweenaydan ay tahay tuugsato, khiyaanooley, nagar badan iyo qof daacadnimada ka fog.